muddo bil kadib ayaa dawladda Soomaaliya waxay soo bandhigtay magacyada iyo waliba sawirada shakhsiyaad lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen weerarkii dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho bishii aanu soo dhaafnay 14 Oktoobar. dawladda Soomaaliya waxay soo bandhigtay shakhsiyaadkaasi sawiradooda ayadoona aan idin soo gudbin doono xog kale oo ku saabsan qabiilada shakhsiyaadka la soo bandhigay iyo waliba cid ay ka soo jeedaan. qaraxii Soobe ka dhacay Muqdisho waxaa ku dhintay in ka badan 500 oo qofood halka tiro intaas ka badan ay ku dhaawacmeen oo u badan dadka reer Muqdisho waana qaraxii ugu qasaaraha badnaa ee abid ka dhaca gudaha Soomaaliya. haddaba wasiirka warfaafinta ee dawladda Soomaaliya wuxuu soo bandhigay shakhsiyaadkan aad u jeedaan iyo waliba sawirada iyo magacyadooda ayadoona shakhsiyaadka la soo bandhigay magacyadooda ay kala yihiin Cabdiwali Axmed Diiriye oo loo yaqaan Cabdiqani. waxaana la sheegay Cabdiwali inuu ahaa madaxa qaraxyada ee gobolka Banaadir. sidoo kale Muqtaar Xasan oo loo yaqaan Garluub ayaa ka mid ah shakhsiyaadka la soo bandhigay oo dawladda Soomaaliya ay soo bandhigtay. laakiin aan ku hormarno Cabdiwali Axmed Diiriye oo loo yaqaan Cabdiqani waxaa la sheegay inuu ahaa ama wasiirka warfaafintu uu sheegay inuu ahaa madaxa qaraxyada gobolka Banaadir. dad yaqaan Cabdiwali Axmed Diiriye Cabdiqani waxay sheegeen in la dhihi jiray Cabdiwali Saynis waxaana uu ka soo jeedaa qabiilka Hawiye Hiraab Duduble wuxuuna ka tirsanaa shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta Hormuud qaybta Soobe xilligan laakiin waxaa la sheegay in sanado badan uu ka tirsanaa shirkadda isgaarsiinta Hormuud. waxaa sidoo kale dawladda Soomaaliya shakhsiyaadka ay soo bandhigtay ka mid ah sawirka ninkii fuliyay weerarkii dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay Soobe ee waday gaariga xamuulka ah ee isku qarxiyay bartamaha isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho dadka badan laayay. waxaana shakhsigaasi waxaa la sheegay in uu ku dhintay weerarkaasi uu fuliyay isla markaana dadka badan uu ku laayay. waxaan idin soo gudbinayaa goordhow sawirkiisa laakiin waxaa sidoo kale ka mid ah shakhsiyaadkan Muqtaar Maxamed Xasan oo loo yaqaan Garluub waxaana qabiilkiisa lagu sheegay ogaadeen Maxamed Suweer reer Cabdulle Maxamed Suweer waxaana la sheegay muddo badan inay saaxiibo ahaayeen uu la shaqayn jiray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo hore u ahaa amiir ku-xigeenkii ururka Al-Shabaab haddana ah madaxweynaha Jubbaland. waxaa sidoo kale shakhsiyaadka dawladda Soomaaliya ay sheegtay magacyadooda ka mid ah shakhsi lagu magacaabo Cabdullaahi Abdi Warsame oo la sheegay inuu ka soo jeedo deegaanada Puntland laakiin waxaa shakhsigan lama sheegin shaqada iyo waliba howsha uu qabanayay. Cali Yuusuf Aways oo loo yaqaan Duuliye isla markaana sawirkiisa aad u jeedaan waa shakhsigii loo diyaariyay inuu isku qarxiyo gaari nooha ah oo ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku qabteen danwadaagaha kadibna la qarxiyay gaarigii ayadoona la qabtay darawalkii gaarigaasi oo la sheegay inuu ka shaqeynayay Hotel Jazeera haddana ciidamada amniga gacanta ay ku hayaan. waxaana la sheegay in shakhsigaasi magaciisa la yiraahdo Xasan Aadan Isaaq oo aad u jeedaan sawirkiisa waana darawalkii gaariga noohada waday rabayna inuu ku wareejiyo Cali Yuusuf Aways Duuliye waxa uu ka soo jeedaa qabiilka Mariixaan gaar ahaan lafta loo yaqaan reer Cusmaan sida ay la xoogaala ay sheegeen. waxaana Cali Yuusuf oo Mariixaan hadda gacanta ku haya ciidamada ammaanka ee dawladda. waxaana sidoo kale shakhsiyaadkaasi ka mid ah ninka sawirkiisa aad u jeedaan oo wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya ilaamaha amniga ay ku sheegeen inuu waday gaarigii xamuulka ahaa ee isqarxiyay. waxaana magaciisa lagu sheegay in la yiraahdo Maadey Cusmaan Xaaji waxaa la sheegay inuu ka soo jeedo Koonfur Galbeed sida ila xoogaala ay sheegayaan. waxaana shakhsiyaadkan la sheegay in ay dhammaantood ay ka dambeeyeen weerarkii ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Cabdiwali Ibraahim Garyare oo ka tirsanaa wariyaasha Soomaaliyeed isla markaana si weyn u yaqaan shakhsigan dawladda Soomaaliya ee soo bandhigtay Cabdiwali Axmed Diiriye Cabdiqani oo la sheegay inuu yahay madaxa qaraxyada gobolka Banaadir wuxuu bartiisa Facebook uu ku soo qoray in shakhsigan uu mar dhow ku arkay shirkadda isgaarsiinta Hormuud gaar ahaan qaybta Soobe wuxuuna wariye Garyare uu sheegay in ay iswareysteen isla markaana uu ku yiri goorma ayaad dalka ku soo naqatay
waxaana uu cabdiweli garyare uu leeyahay wuxuu weydiiyey telefoonkayga gacanta laakiin waxaan kaga shakiyey gar weyn uu deystay shakhsigan cabdiqani oo hadda gacanta ay ku hayso dowladda Soomaaliya waxaa la sheegay inuu ahaa madaxa qaraxyada gobolka Banaadir wuxuuna ka tirsanaa howlwadeenada shirkadda ugu weyn ee Soomaaliya ee Hormuud kol hore waxaa qarax ka dhacay xarunta madaxtooyada ee Soomaaliya xilligii madaxweyne xasan sheekh maxamuud la qabtay shakhsi ka tirsanaa howlwadeenada shirkadda isgaarsiinta Hormuud gaar ahaan qaybta madaxtooyada ee ku leedahay kaas oo magaciisa la dhihi jiray xasan muxudiin xasan waxaa toogatay dowladii madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuuna hogaaminayay weerar lagu qaaday aqalka madaxtooyada ee Soomaaliya waxaana shakhsigaasi la sheegay ama lagu eedeeyay inuu ahaa hogaamiyihii weerar lagu qaaday aqalka laga maamulo Soomaaliya ee madaxtooyada waxaana xasan muxudiin uu ka tirsanaa howlwadeenada shirkadda isgaarsiinta Hormuud waxaana Hormuud ka shaqeeya kumanaan dad waxaana dadka qaarkiis shirkaddu ay ku eedeynayaan in hoggaanka shirkadda aysan ka warqabin shaqaalaheeda oo in badan oo kamid ah lagu tuhumo inay ka tirsan yihiin dagaalyahanada al-shabaab haddaba aan daawano xasan muxudiin xasan oo dowladii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay toogatay kana tirsanaa howlwadeenada Hormuud xasan muxudiin xasan wayahay xasan goorma lagu soo qabtay habeen hore 3 saac haye maxaa lagu soo qabtay waxaa la igu soo qabtay madaxtooyada wax ka dhacay muxuu ahaa dagaal ka dhacay meeshaas darteed la soo qabtay dagaalkaas sidoo dhacay iyo lugta aad ku lahayd adiga bal sheekadaas nooga sheekay anuu gaariga uun baa waday gaarigu noocuu ahaa no imse qof baa kula socotay aniga waxaa waa rag la socda maysan jirin laakiin ragga waxaa waa rag aniga la igu soo diro oo si handada la igu soo saaray ahayd raggana meesha geeya uuna lagu dhahay meesha markaa geena ayagaa meesha nimankaan ayagaa dantooda qabsanaya isaga soo tag haddii geeyana waa kasoo tegi waa meel siduu dagaalku bilowday waa gartay imise nin baad wada markaadi nimanka 3 ahaayeen 3 haye marka 3 hore muu taqaana may haye oo la soo saaray markaas xagee laga soo saaray meel wada ayaga joogaan ka soo qaad lagu dhahay meesha wadada ka soo qaaday meeshii oo waxay to halkaan geeya lagu dhahay wadada iyo halka aad ka soo qaaday ma noo sheegi kartaa wadada Boondheer waa Boondheer marka ma iyagoo qoryahooda wataad wadada ay taagnaa ayagoo qoryahooda tahaa sida askar u labisay meesha taagnaayeen